السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يالكسو دوادا برنامجكي حوق ورن يقضبدي وقدام بيي waxaa caawa martay uga barnaamijka Mustafa Cilmi Mustafa soo dhawow aad u maasantahay bisle waan dhawahay adiga iyo saaxiibada waxa u dambeeyay waxa weeyaan xaaladda guud ee Itoobiya ee deegaankeena waxa u dambeeyay horta bislow aad u maasantahay run ahaantii isbuucan waa isbuucyadii hore aad moodin ka jawi bedelan yahay xaaladda Itoobiya markaad eegtid waxyaalo badan dagaalkii waqooyiga gobolka Tigray oo wajiye kala yeeshay doorashadii oo wali lagu dhawaaqi laayahay maxaan ku dhahay deegaanka xmaaradii deegaanka Tigrayga oo isku sii hanjabaya Tigrayga oo dhinacyo deegaanka Canfarta kaga sameeyay dagaalo qodobadaas sidoo kale codad laga duubay gudoomiyaha Jawxo oo ayakuna aad wax ula yaab la noqon doona qodobadaas iyo qodobo badan baa ka jira haddaan ku horeyno dhankan waqooyiga gobolka Tigrayga jabhadda xoreynta Tigray baa ayaka dhinac magaalooyinkoodii furtay walina u hajuumaad u bixinaya dawladda iyo sidoo kale ba gobolka Axmaarada maleeshiyaanka lagu murasana maleeshiyaanka Axmaarada ayakuna sidoo kale Axmaarada ayaduna dowladsiyo sameynayso oo meelaha qaar ku dowladsiyo ku sameynaysa ninkii Gadajo Reedaha waa siga yiri wuxuu yiri beebeeyadii iyo kaarayaasha bahalkii celin waayeen kaarabin celin maayo asaguna u soo marnayay hub aan loo malaynay inuu beer abuur yahay sidoo kale soo bandhigeenoo markii xaaladdu xumeyd ay laftirkooda ay isticmaalaan oo ay meelaha wareejinayeen waa ka wahiyay madaxweynaha Axmaarada ee Soomaaliya dagaalkii la galaa sidoo kale waxa jira doorashadii baan wali ayadana lagu dhawaaqay shan cisho kadib in lagu dhawaaqay ahayd xilligii la qabtay ilaa ay garan natiijadii lagu dhawaaqay taas wajiye badan baa loo dhigi karaa guddiga doorashada Itoobiya waxay tiri waxa lagu dhawaaqi laayahay waa sabab la xiriira axzaabta oo soo cabasho ka sumuujiyay xisbiga azaam waxa la sheegay 400 oo kiis buu gudbiyay oo cabasho oo ka cabanay qaabka u dhaceen maalmihii ay doorashadu socoto codbixintu meelaha la joojiyo ayadana la gali waayay marka arrimahaas oo dhan waxay noqdeen waxyaabo natiijada lagu dhawaaqay sidoo kale siyaasiyiintu ayaguna waxay sheegeen inay taa ahayn in lagu dhici laayahay oo cid ku dhawaaqda laleeyahay sababtoo deegaanka Oromada inta 100% wax ka tartantay أبيه يحسبيجي سبيبي أحمرض أو كله أدب وحلوجي إن لو قاعد بتلشيجيا نتيجة دي إني أقبلين بسياسيين تشيجيا نتيجة إنك قارئ يكون إني أقبلين بس عادي مركي أركان أحمرض أو كله سديد كوب دور شالي يدوالو دواقي شنب معارض قاتل وحاب هذا صوب حساب إني أيكو برجع كسارة يعني ولا نتيجة دي يعني لو دواقينا هبين كده تو برلمان كحل مدته كدعي حل جود لما هذا بالفريسية الميزانية ده لو قد وإنك مسقماس قديرين كأنه كارن طلبات كانت كواد بوكلا كانت طلبات ما تكريجا كوري أو دتكوي وحي حب حوالدي هذا اللي قاعد يجي سومالي بيجتو هذه اللي هو ديارات بكك علاج سوا وحال تكريجا تشوتشي because of واسي سومالي حلي هور لقولها ما أنت عيد الله يسلم إن أنا كانت طلبات أو دي وياكي جدي دورش جدي دي مسقماس كشجان كانت طلبات ولي بوصل الفاقية بدن تدرس كشعب كهذا دريمة بس مسقماس قديين كوتشرو نيروبي يترك كسر لوري سنة مسقماس كتير ده وحلا ولي بقى بدير بس يكش كانت طلبات قبل قرحي أو يجون على قاعد يوم يحب حوالي كانت طلبات بس يكش كونسل قبل بدير بكانت طلبات أنا سيكلا وحالة إلى ما يركزيون أرمهاس سيدو كل حاجة مالن هوري لقى بهي قدوميها الجوح ترى عبد الرحمن شقان مادي حتى أنا ما أنتنا الله كسر نقطة يلا وصل سؤالها السويدينية وحيتها عد كاس حقي لك كان يا صدوبي مقدوميها اسكدوبي ما قفتت كلها الله يكدوبي محايس وافجي صح وسؤاله نارتيفا صح عد كان إففالها مركز توح عدي ما هين لكن إففاله نتيجة رسمية موجينية لهيا أو دتت كان عقلي بوليه لأن ير ما أنت أرك اللي هو أنك حكومته سوشيال ميديا وحكون تدك حمي زين وتدك فيسبوك استعمارهم لو جاب تدك نقيت ودمدا ميلها قار قبل تشوجين تدك فيسبوك باستعمال وباين حلقة جورنال لوجي تندين عصرك عين ولي سوقان عدد كان محين نقون كريان نتيجة كذا لان كرتم حسيه هي عد كان عديمها صباح إفبحية وحدوبة يتهلاك مركي أن استعماله شركة إسكارسين إثيوبيا قيبتي ذا مركان استعماله لبقى قاعدة مدو فشلية بروتوكول مدحوينه صح بسلي أو يري مصبحي بقى وحلقة طوبي عدتها لا يجانا كطوبي
duq la hadlayo meelahan oday dhaqameed marka waa dabeecad iska natural oo ah xukuumadan iyo hadii xukuumad ku dhisan social media Facebook bay wadan ku qabsatay ilaa ay Facebook bay miisaaniyada lagu dhaadhiciyaa ilaa ay wax maxaa lagu dhaadhiciyaa wax Facebook iyo wax dadka in dhaha intii la qabto la tiro inda tiro dadka dam laga siiyo marka codka teelayga duubaya soo sheegay dad waxa jira xilliga ninka uu haliyo wuxuu dad waxa jira oo ga shaqeeya uu lacag siiyo niman ka shaqeeya waliba ninkan xamaarada isku dhawyin meelaha xarumaha Ethiopia Abyssinia markay qabsatay wadanka waxay aad u isticmaaleen in xarumaha aan ishu maqabatayda inay xabashadu qabsato saalahan lahaydhka teelayada arkiifyooyinka hadda dad magaalada deegaanka bangiyada meelaha markaad gashado waxaad ku arkay meelaha yarkee soke ee meelaha laga qorqorayo waxaad ku arkay in xabasho fadhiya waa siyaasad xil dheer oo 20 milyan oo magaalooyin ku dagaalamaysa weeyaan marka qabsashada base bay ka soo bilaabay 20 milyan oo magaalada ku dagaalamaysa sax nin 100 milyan oo magaalada banaankeeda ku dagaalamaysa 20 milyan oo kugu dhex dagaalamaysa aqalada kaaga dhib badan marka nimankaas waxay og tahay nimankaas duubayaan ma waa 90% waxa la qaadan karaa naar cadeymahaas oo in ay ku duubayaan waliba gudoomiyuhu inuu la socdo qof tababaran oo qof muddo 37 sano ilaa 40 sano oo waayihiisa siyaasadda ku soo dhex jiray waliba siyaasadda caalamka ku soo dhex bartay oo garanaya waxan wax walba wada waxyaalaha arrimaha noocaas inuu khatar qof walba siyaasi uu garanayno codkii hore laga duubay wax xoog ma bixin kana ma bahadlinba salaan uu lasdaamro codkiisa ma ku cadeynayaan laakiin ayagu waa doqomo ninka waxa kuugu daran inaan isla laguma yaqaanay dadka isbar waa loo yahay inay wax duubaan inay qarsadaan oo inta yar codka 5 daqiiqo heleeyeen inay duubaan nimankan teelaygu marka sharciga Ethiopia sax waa qaabka Ethiopia u duubto teelaygan ay waxay u duubayaan ama nidaamkan ay u duubayaan sharciyada wadanku qofku waa lagu qabtaa sax laakiin si ayagii ma soo bandhigayaan qof hadda dad hebel la garanaya loo dhiibay codkii oo is garanayaan marka horena waa kuwii ka saaray maanta kuwii soo galiyay xukuumaduna faa'iido ma keenay kooxdan Facebook iyo YouTube ku weerartay wax siro oo matqanay ka baxay meesha ma jirto wax faa'iido ka helayaan ma jirto laakiin khatar oo ka iman kara oo حويان طبعا خطرها كإيمان كانوا حويه هرتا عيب تودين بالوتجي قفل بو سياسة مصبح هذا دي وضع ما سووا سووا عماية كوس عضو مرة كتوبة نيك قفكوا سياسة دو حاجة مؤمنة واحد لها سياسة دو وعد ولا وجه لكن هذا نوعين مؤمنة لا قفكوا وحول بتلمان بالغاتك هذا يجمع واجي نيكي وضع كهيستي تلاقي أنا العكس سين شري حدود دوبي شري دوبي شري شري فيسبوكي أنا تكجون قفجت خليفة فيسبوك سلاك شبصي لما ترين كرر محاول كلا قبل ده ويلك يرى 20 مليون كهلا أنت لقى قاعد فيسبوك سحلو سكر وحرر اللي جرين كبحنا يا بينتان شيء هذا وين حرنا محبوس وشقة يقانن نحن بقى فيسبوك سكر حبايب أنت لقى قاعد اللي يحكوا سكر يعني وح صابته وحال يدي على شعاع وحيدي نين والله وحيد يقانو مالك شذا had kii hore wuxuu yaqaanay buu alaabo kale oo fisqi ah tiibu meel gali hadalkiisaas waa run waa qaacido kulliye waa la qaadanaya kana wuxuu yaqaan social media iyo screenshot iyo waxaas iyo qorshahan ku shaqaysan jiray tiim buldana wadada loo dhex raacay waliba activist la dhihi karaa madaxweynaha maxay waa activist lama dhihi karo 200 Facebook wax ku qoraa activist maxaa la dhihi karaa activist ma still kooxba wuxuu qorta niman buu leeyahay niman waxa jira kooxdii hore ka soo hadhay Cabdi Ilay oo beejid waxa jira kooxdii Cabdi Ilay ka soo hadhay wax loogu qoro meel waxa jira marka codoobistan wax loola yaabay ay kama waa la ogyahay nin shaqadiisa la yaqaan hebelow shaqada waa la yaqaan maqasho shaqadooda waa la yaqaan in wax duubi iyo in wax la isdaba maranayo inta way garanayaan ayagu inta wax waa lagu garanaya laakiin wax natiijo oo faa'iido ooga dhalan ma jirto gudoomiyuhu labada cod laga duubay Islaali codad doona kala laga yaabay inay soo bandhigaan because codadkan ay soo bandhigeen waa xilli hore codadkan ay soo bandhigeen waa xilli hore maxayna u soo bandhigayaan meeshii xarunta isgaarsiinta xarunta way u digeen siyaasiyiinta kale deegaanka loo wada diro qof walba wax ka hadlaha iyo u digeen because aalada aan waxba loo dubin Gmail la jiro aan waxba lagu arkarin oo loo isticmaalo laakiin ma la dhihi karaa shakhsiga codka duubay ee wax siraba uu ku jirin hadana soo bandhigay siyaasi ma aha meesha siyaasiyiin ma joogaan dadka Soomaalidu waa inay baraarugaan maxaa siyaasiyiina xarjar wada laga xarjarayo oo 9 Chinese joogto yiri
xisbina la tartamay mucaarada ma jiray sagaal noo jeenaysa maxaa looga sheegay siyaasadda sheegaysa xagee taal wada laga xarigsanayaa wada la xarigsanayaa sagaal noo jeenaysa jooga waxaa la haystaa oo ninkii wadada dhan mashruuca isku faanay ninkii mashruuca dhan isku faanay RTV YouTube war dadka maxaad u qabatay RTV iska daawo waxaa la wajigaysaa intaas soo sanad miisaaniyad bad ansixisay YouTube war balbaash intaas ka dees jeenayskan YouTube ka iyo RMS gaarin adin baa ogeed laakiin waxa isweydiin leh habeen kasta Facebook wax kasta oo cusub la soo dhigo ma la socdaa madaxweynuhu miyuunan waxa weeyaan hawl qaran haynin maayda dhowr waa san kuu sheegayo tii horna film fan bruce daawan jirtay filmka fan bruce ka caaw soo bax jimcaha wala xadir jiro wala soo shubin jiray tanada Facebook bay ku qabsatay in Facebook ka dhex fadhiin maxay sameeyeen sagaalka dambe iyo 10ka dambe kurtigood ba ku jira kurtigood buu wada barayba ku soo wada dhanaayeen teamka waa muflixiin marka waana sababta keentay musuqmaasuqan baasan maamulkan istamarsan wadankan iskhariban nin walba Facebook gaar iskala soo hadlaya wad istamarkan iyo waxaan la garan lahayn iyo meesha wax loo socdaan iyo qaskan socdo waxa weeyaan waxa la garan lahayn jadwalka wadada la qaadi lahaa qasab hadana dadka shacabka Soomaaliyeed oo dhan generation ka hadda kacayo dhan qasab inay Facebook dhex fadhiyaan badcin because of nin walba systemkiisa wuxuu ku difaaciyaa Facebook ku difaacay ma nin mushaar yar qaadanaya oo sidii haddaad garatid xilligii uu dambeysay xukuumadda hore dhacays intii dhalinyar loo yeeray baa lagu yiri meel meeshan lagu xiriyayo laptop iyo mobile loo qaybiyay hatta dhalinyar looma qaybiyo laptopada kooxda ku waaweyn yaa wax ku difaacda wax in dhamarisa oo aad aragteenayday xaqiiqada ka fogtay oo deesdii aqliga qofka bini'aadamka la xadaya aqliga qofka bini'aadamka bal hada Facebook-gaaga maanta haddaad wax ku soo qortid iyo haddaad wax dambi weyn samaysid waxa ay Facebook-gaaga kaasa la eegi hebel Facebook wax ku soo qor waa lagu soo waco Facebook ka saar wax ku soo qorto war maxay idinka galmeen idin dhaliili kar marka boqol qof baa u cartay Facebook wax ku soo qoran laakiin su'aasha aad la isweydiinaya waxay tahay madaxweynuhu markuu iimanayay un wali adsaba ka soo doorin codkii ugu horeeyay ee laga soo duubay ama muuqaalkii laga soo duubay baa ahaa waa la dhaliili karaa waa waxa weeyaan waa mataqaanaa dhaliishada wala sheeka waa la dacaydeyn karaa wixii ka baxsan faaxisho shakhsiye macnaha shakhsinimo ama ku saabsan shakhsiyadiisa haddana waxaad moodaa xataa dhaliishii dawladnimo ama dhaliishii saxiid u baahnayd ee dawladnimo in waxa weeyaan shakhsiye sheega shaamad kale intii la saaro in xabsiga loo taxaabayo oo aad ogtahay dhalinyarada qaar waxa weeyaan xidhan oo shaamado kale lagu dhufto hal sanaaba lagu xukumay hadda waxa ka sheegtay ninka يا واحد يا هلك oo tiraahdo wadadan maxaa looga jimay wadada waa maxay wiil hadlay hal muuqaal duba hal sano oo inta soo xitaa TPLF lagu maadan karo inta soo sano cabdi ugu soo xnaa jeel ugu soo jira sax muuqaal duubay hal sano la yulad kiiska lagu xukumay hadda markaad anagu de markan maxkamadda ma aqaan laakiin kiiska isticmaaleen hadda waa un mustafa maxad u tiri waxa soo igu yiri waa hal sano laqay saddex sano kuwa laqay rabaala siiyad saddex baa la laqay يا اللي يقول لقوح كبار اللي يقول ويل كنا سند بالقوح وحيالها يعني أف بهن إن قف قدرت كنوع عاوة فيكتم نمان كان صدق سنة لو حكومي وضع كم حكومي كرتيد واتكفر سلامتي أو كلية يدهن هذا أنت صدق بدين وبديان وكو أنت عندهم بالحكومة أنت وين بديان ودلقات مو يشرين تاس ومو دلقان كران كوني لكن ويل كانوا محل معنا هاللي هل سنة دور وعدتك فيكتم إسكا وحياله حاجة ردتك فيكتم كوالله عليه شيلو صامري عذاب بصومري لغو سو جردلay naafo aha dhibaato badan buu soo maray jeelkaas ku soo naafoobay waa dadka u baahan in wixii hore laga wacyi gelis immobilization loo sameeyo laakiin hadii kuwa maanta hadana la gig lagu siiyo de waa wixii xun noqonaya un de waxaad moodaa un system daciifay yani bahal daciifto underground salka tagtay sax in ay waxyaabaha kale ee aad loogu wareerayadana waxa kamid ah madaxweynuhu markuu yimid wuxuu waxa weeyaan aad ugu soo celcelin jiray xukuumadii hore waxay ahayd nooc boqortooyo ilaa xafiiska tuulada iyo gobolka iyo ka degmada madaxweynaha xukumi jiray buu waxa weeyaan iyo aad u oran jiray wasiir kasta iyo maareeyay shaqadiisa uma madax banaano haddana waxaad moodaa madaxweynihii inuu ilaa maxkamadii xukumo marka si wuxuu jiraa baad isdheeri kartaa nin horta xukunku hogaaminta horta waa laba qaybood wax markuu leadership iyo management waa kala jirta maamule iyo hogaamiye qofku markuu hogaamiye yahay waa in uu qaadan karo go'aamo qaraadh oo nafsadiisa qofku markuu maamulo yahayna waa un loo taliyaa ma taliyo hadda xilliga saxaabada nabiga kaleey salaatu wasalaam marka dib ugu noqotid asxaab waxa jirta qaali ahaa abi dir oo kale oo lagu yiri laba qof itnayn ha u talin
kuwa habeenka intay saxaabad kusoo biraan markiiba hogaamin laga dhigay jira hogaamintu dadku waxay aaminsan yihiin 96 in ay tahay wax la barto 2% waxay aaminsan yihiin in ay tahay alla si qofka in alla si oo qof uu wax ilaahay talantiisa 2% kala soo hadhay maxay dhaheen waxay aaminsan yihiin hogaamin ma jirto wax hogaamin la dhahayo ma jirto boqolkaas weyn hogaamintu marka nafsi waxaan u malaynayaa ma ayna helin qof hogaamiya qofka hogaamiye waxa loo baahan yahay in uu ku mashquulin waxyaalaha gudaha hadda eega tusaalahan waa saad sheegaysayo marka waxyaalaha qaar u fiirsato waaqiciga aan soo joogaan marka arko hadda tusaalahan xaflad baan dabcan ku qaban qabridaar maalin wiil baan soo wacay gobolka haysto wuxuu yiri madaxtooyada la igu yiri ka soo jooji xaflad waa qabridaar waa xaflad yar oo la qabsanayo marka maamulka gobolka kii waxa weey degmada tuulada sax ay saga xukuma daamiins waxa weeye hogaamintu hogaamiye ma joogo laakiin maamula joogo sax hogaamintu wax loo dhasho sax waa wax la barto waana wax go'aan maamuluhu laakiin wuxuu garanayaan ninka xaafadda markuu maamulo xaafad haysto wuu maamuli karaa laakiin hogaamiye ka sarreeya magaalada xaafadda xukumo waa inay jirto marka go'aamada kharaad muusa baran daamiins keenaysa in lagu dhaliilo inuu haysto inuu yahay ilaa tuulada ilaa gobolka ilaa degmada ilaa meeshan wax isku xidhan yahay oo nidaamka waa keenaysa in cod qof teelay intii loo daato oo cod soo duubo cod ka keeno daamiins keenaysa weey waxa ugu badanay uu keenayo laakiin waxa isweydiin leh maxaa sababay xilligan xaaliga ah waxa weeyaan in cod la duubo ama la soo bandhigo codad la duubay maxaa sababi karaa is leedahay haddaan si guud hal markuu ugu dulmaro waa diiqowga siyaasadeed hawada ku jira diiqowga markuu dhasho wax diiqowga la wasaqowga hawada siyaasadeed markuu dhasho wax kulul waxaa la arkay xilli baa soo dhamaaday 3 sano way soo dhamaatay kumeel gaadnimo wajh cusub waa laga maarmaan shacabku waa la hogaamin waayay hogaamintii deegaanka already waxay noqotay 15 milyan oo dad 93 degmo 11 gobol 6 ismaamul magaalo intaasoo kun oo baaxdo dhulle yaa la xukumay waxay noqotay inay la isku wareero dadka in la jeeyo dadku wuxuu baahan in la jeeyo dadkeena wada aragtay qabiili siyaasad qabiila maxay daamiins ma jir maxaa keenay laba xaala keentay mid waxa jirta koox ila naqs ka kacayo marka hore lagu taagnaa oo uu systemki dad uu rafaadinayay baa jira systemka hore marka kixisada ahaa dad uu rafaadiyay baa jirta oo in dadku deeno hadlo looma ogolaan systemka hore markii caburintii iyo layn iyo dil iyo dhac iyo boob iyo xukun ma inta wax dad mujrimiina dooradii aan soo marnay xaaladda meelaha soo mujrimiina tan markay timaado mujrimiin ma maxaa la rabay laakiin dadka la jeeyo waa la jeeyin waa soo على شو عشاقيو نم والبو معلم وحكو يهم بوضع سيستم قبيل ما دتك اللي تحقليو صح ولا اسكو تشاوريريو marka waxa la arkay kuleel siyaasadeed hogaamin cusub dadku leadership inuu baahan yahay hogaamiye qof gudoomiyaha jooxo codka waxa looga duubay waxa laga dhex arkay shaashada inuu hogaamin ku jirto yahay صح wax walba la sameeyo la isku day boqol wax kale la isku dabay ururka la dhex inay dhex hordaan bay isku dayeen oo la cuno way suuroobi weyday oo halka tiqraar ba halka laga qabto banaanka lagu qabto halka waa la yiri isla gubta صح jawaari yaa muqaal u duubay yaa waxaan ku xasuustaa wuxuu yiri go'aankii ku lagu adkaa ee la qaatay muxuu ahaa jawaari waa lagu wariyaa weydiinay gudoomiyaha hore baarlamaanka Soomaaliya wuxuu yiri waxa uu adkaa wili madaxweynaha sideed markii la dooranayay waxa la yiri buu yiri niman dadka laayay la yiri waa la yiri yaa istamcaan soo sharxan beesha caalamka United Nations waxay dhaheen already ma sharxi karaan dadkaas أنا وحن قام كجاري بدو وحوان فكري بدو قام كجاري بدو نمكنه إنن الشرحان ننقر من بدوبيا ويديو يدو نمكنه إسكو إتشني سامع إسكو شرحين سامع حالي بدو حتى يكاد قبض مرة بيني الله بحاله هلك كوسو وحن رأي إن أنت الله بحاله كوسو كاتشان مرة بينتي سوق قلنا أنا إن يقول ماش كل حكاتشان ولا ويديو ورا أنت جواري وحياة عيولي حتى أنا هذا عيري وأنت بنان كأرداني حمر مجال كعا أو ربل بوح نودي دي لكن هذا أنت هلك أنت سيستم بنان كاسو كاتشو بدك بنان وجوده يكاتشو بيد أو ده نمك يحتاج الأرض حتى لكن أنت هلك كان لقى بدي يبيد أو لقى بدي يبيد already بعشرة يلا بيحبي صح دامينس marka waxaan rabaa inaan xirku hayo inta system ku dilo doomiyuhu dadkii iyo nidaamka jawaabta damcayna jaawareeriye tiqraar lagu qabtay banaanka la geeyay waxa la yiri
intaad nagu dhex siyaasad burburo decision maker urur ku dhex samayn lahaydeen banaankiina la tag sirta ururka wuu ogaan waata codkan waxa ugu badan keenay waxa weeyaan xilliyadii hore xogta rasmiga ee jabhadu ogaan jiray wuu waayay wixii xageenu doonay mirig war dalkii hogaami waa la rabaa laakiin xog baan sida sirta intelligence-ga ICG-ga in loo shaqeeyo lama rabo midowga Soviyetka wuxuu ku burburay buu ahaa marka dib ugu laawat midowga Soviyeetku intuu xog israadi lahaa baa isaga xog laga raadi eega waa sidii intii xog raadinayeen waa laga xog doonay already systemka dhan waa la fashilay ayaga dawlad cagaha loo dhigay dhidibada loo dhigay dadka la jeclaysiyo dawladda dadka waa la jeclaysiyaa dadka hanti dawladeed kursiga dadka iskala shacbiga waa in dadka la jeclaysiyaa laakiin dadka in kursiga la nacbisiyo ma xukuumadii hore askariga marka la arko waa la gaban jiray tanna in sidoo kale la ahaadon ma maxkamadda waa in cadaalad la arko musuqmaasuq la yareeyo nidaamka dawliga banaanka iska mar asaga ciidu markuu iimaanay qofka loogu jeclay badan yahay waa la soo dhaweey waa loo socday banaanka haduu maro kooxdii heegadii iyo kooxdii Cabdi Ilay mooyee iyo nimankii TPLF mooyee cid kale wax ku filaysan ma jirin jabhadu way soo dhaweysay shacabku uu jeclaa dadkii dhibkii laga dhex qaaday systemkii buu la jaan qaaday uu ra'iisul wasaaruhu fidiyay sidiisa haduu ku sii wadi lahaa maanta Soomaali waxay qaadan lahayd garab xoog badan Soomaali galbeed waadayay maanta wuxuu jiri lahaa nidaam xoog badan qofka loogu jecel badan yahay noqon taariikhda in boqolkii sano ugu dambeysay taariikhii qaabka daraa soo marayna wuxuu ka qaada ka gilaa baalka dahabka ugu sareeyo laakiin fursadda nidaamka chance wuxuu siiyay nimankii hore tagay ee dadka cadaabay iyo chance siiyay wuxuu chance u siiyay dadkii wala jaayin waay telefoon hadda marka waxa keenay sababta waxa weeyaan waxa la arkay karka culayska saaran marka in xog laga doono gudoomiyaha waxa laga dhaxarkay qofka koobaad ee hogaamin ta ummadda noqonaya mustaqbalka dhow maalmaha inuu yahay baa laga dhaxarkay sababtaasana codubista keentay insha waxayna noqonaysaa calaamad lagu soo xasuusto kooxda meesha joogta wax qof walba hadda kooxdii hore tagtay waxa lagu soo xasuustaa تعدي يا مسقماس تعدي ولا مسقماس لكن كون وحلو صح الصندونا يدبك أمد وحي وجيستين هكردامدي لكن كون وحلو صح الصندونا مسقماس يعضوا بس يفيسبوك قف انت لقب صار لقى تبص عبد الرشيد على الشعاع صحيح كيسا انت صار لك شكل سنه فيسبوك لقى تبص صح قفك وصاحب سنه في عقل كي سيستم كور اللي امن سنه اللي قدمي فيسبوك عبد الرشيد على الشعاع وحال امن سنه سيستم كور اللي قدمي انه قيمه سيديتهم كونوا قف بفلاو روحي لحاجه لو بخي ميزانيه انت سوق انت لو قبتي oo niman jooga Nairobi la hadlay bahalka la kac sax gaftid waa inta loo shiro sax wiilkan kale waani ku sheegay si cid walba telefoonka waa mirig nin kale waxa arkay maalin engineer maxal dhahayay wiil nin kale engineer ha wadada ka hadlay sax Facebook is wasaga sahan maalinta dhigtawada laga saar waa system marka kulka siyaasadeed iyo isbedelka rasmiga ee la filayo baan u malaynayaa malama xitaa baa un keenan aad ma santa aad maadsan tahay Mustafa intaas ayaan ku soo koobaynaa barnaamijkeennii xog waran oo caawa martii inoogu ahaa Mustafa Cilmi tan iyo tan barnaamijkan mid lamada ku kulmi doona waxaan kaga tagnaa sida ayo nabadgelyo